ergeyga gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swam ayaa fariin gaar ah oo ku saabsan wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland dhawaan soo gaarsiiyay madaxweyne Biixi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia. Wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa sheegtay in safarkii uu James Swam bishan 10keeda ku yimid magaalada Hargeysa uu madaxweyne Biixi u gaarsiiyay fariin uu ka siday qaramada midoobay midaasi oo quseysay wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. James Swam ayaa Biixi u sheegay in qaramada midoobay ay taageerayso qorshe ay ujeedkiisu tahay in kalsooni laga dhex abuuro labada dhinac ee dowladda federaalka iyo Somaliland iyadoona la sii dhiirigelinayo wadahadaladii fadhiidka noqday ee labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa arintaasi kaga hadashay warbixin toddobaadlaha ah ee loo yaqaano Week in the Horn oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia soo saarto dhamaadka toddobaad kasta. James ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Hargeysa waxa uu warmurtiyeed ka soo saaray booqashadiisa isagoona wax faahfaahin dheeriya ka bixin arintaasi isla markaana si cad aan u sheegin in qaramada midoobay ay si toos ah uga qayb qaadan doonto wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Somaliland.